madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa fariin duurxula oo dagaal u diray nidaamka Israel waxana uu yiri dalka Syria waxaad ka dhigi doontaan goob lagu baratamo oo lagu dagaalamo ciidamada wadankaygu waxa ay ku jiraan diyaar garowga ugu xoogana oo ay kaga hortagayaan buu yiri qatar kasta oo amni oo wadankeena uga iman karta dhinaca wadanka Syria waxa uu ka jawaabayay khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu dhinaca kale kooxda Hezbollah ayaa dareemaysa qalqal weyn oo xoogan kadib markii la dilay Dabdabawi oo ah nin kamida raggii labaad ee ama hogaankii ninkii labaad ee ugu sareeyay nidaamkaasi oo lagu dilay halka loo yaqaan koonfurta Beirut warar kala duwan ayaa soo baxaya iyadoo laga hadlayo mustaqbalka kooxdan iyo meesha uu ku dambeyn doono intaba maanta waxa lagu dukaday janaasada oo la aasay hogaamiyahaasi Israel ay qaarajiyeen haddaba dilkiisa sidee loo fasirayaa marka lagu